Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada daawadayaasha ku xiran kanaalkeena Tansheeg. Waxaan idleeyahay lahaantin ciid wanaagsan. Maanta waxaan ku hadlaynaa mowduuc ku saabsan waa kuma Ibnu Nafiis muxuuse qabtay. Ibnu Nafiis waa dhakhtar iyo caalim weyn oo muslina, wuxuuna daah qaaday waxyaabo fara badan oo muhiim ah, taasoo ka mid tahay habka wareegga dhiigga ee samabada, taasoo afka qalaad loogu yaqaan the pulmonary circulation. wuxuu noqday madaxii ugu sarreeyay dhakhaatiirta ee Masar, wuxuuna alifay kutub fara badan oo muhiim ah, kuwaas oo ah mujallado aad u fara badan. Kitaabtii uu qoray Ibnu Nafiis waxaa loo turjumay luqado fara badan, iyadoo la eegayo ahmiyadda iyo qiimaha cilmiyeed ee ay lahaayeen. Mowduuceena maanta waxaanu kaga hadlaynaa waxyaabihii ugu caansanaa ee Ibnu Nafiis laga bartay. Waa kuma Ibnu Nafiis. Wuxuu ku dhashay magaalada Dimashq sanadkii 1213 miilaadiga. Waxaa lagu naanaysi jiray Ibnu Sinihii labaad. magaciisa oo dhammaystiran waxaa la oran jiray Abulxasan Calaa-udiin Cali ibnu Alxasmi Al-Khaadili Al-Makhsuumi. wuxuu noqday madaxii dhakhaatiirta ee Masar. wuxuu wax ku bartay maxadkii Baytarisiim Nuuri ee ku yaallay magaalada Dimashq. wuxuu bartay fiqiga shaaficiga ah, isagoo si qoto dheer u bartay luuqadda iyo suugaanta. wuxuu ka soo shaqeeyay dhowr cusbitaal oo ku yaalla Masar, sida cusbitaaladii Naasir iyo Mansuur. sidoo kale wuxuu dhakhtar khaas u soo noqday Daahir Beebaras oo ahaa suldaankii Masar iyo Shaam u fadhiyay mamaaligtii intii lagu guda jiray sanadihii 1260 ilaa 1270 miilaadiga. dhammaan kutubtiisii iyo wuxuu alifay wuxuu u hibeeyey maxadkii Baymaristan. takhasuskii dhakhtarnimo wuxuu ahaa quudinta ama wax afqalaad lagu dhaho nutrition. waxyaabihii uu qabtay Ibnu Nafiis waxaa ka mid ahaa wuxuu dib u eegid iyo sixitaan ku sameeyey in badan oo ka mid ah aragtiyihii Ibnu Sina iyo Jalinus. wuxuu daah qaaday habka wareegga dhiigga ee samabada. wuxuu ka qoray kutub fara badan oo ka mid ah dhakhtarnimada, fiqiga iyo xadiiskaba. buwaagtiisa waxaa ugu muhiimsanaa Ibnu Nafiis qoro aad ay fara badan yihiin. qaar ka mid ayaan magacaabi: 1. sharx tashriix qaanuuni Ibnu Sina. 2. الكتاب الشامل في صناعة الدبية. 3. الرسالة الكاملة في سيرة النبوية. 4. كتاب الشرح الأدبية المركبة. 5. شرح تشريح القانون. tubtiisu halkan kuma soo koobi karo, aad ayuu fara badan yihiin. waa ku madsantay daawashada mawduucan weynoo mawduuc xiga insha Allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.